maaha mid ku kooban dhaqanka Soomaalida kaliya maryo la guntado agab iyo waxyaabo inta badan ay bulshada Soomaalida ay si gooniyo u soo hadal qaado marka laga hadlayo soo jireenka ummadan inkastoo daayirta Soomaaliyeed ay si weyn u yaqaanaan marka laga hadlayo raashinka bariis iyo baasto iyo waxyaabo kale oo la halmaala haddana waxaa jira raashin si weyn loogu yaqaano ummadan oo ka dhadhan iyo dheef wanaagsan quudka kale ee maanta dunida laga isticmaalo hindishaha raashinka la isticmaalayo xilli hore ayaa waxay ku muujinayaan farshaxanimo xeel dheer oo salka ku haysa in la kaydiyo quud bisil iyadoo aan la isticmaalin wax qaboojiya muddo dheer waxaana raashinkaasi ka mid ahaa hilibka loo yaqaan oodkaca shankaroon waxa ay ka mid tahay hablaha muddada ka shaqeynayay isla markaana xirfadda xeel dheer u leh sida loo dareeriyo loo yaryareeyo isla markaana loo shiilo waxayna ka waramaysaa sida hilibkan loo diyaariyo hilibka xoolaha lagama wada gooyo muqmada geelun baa laga jaraa geelana lagama wada gooyo hilibkiisa labada lugood baa laga jaraa hilibka oodkac baa magaciisa la yiraahdaa Soomaalina dhaqan bay ahayd weligeedba ha ugu badnaato gabadha la guursado oo lagu rarayo oo dhibaad wax leeyada looga dhigo dhibaad reer naftiisa isaga goosanayo iska cunaya wuu iska jira oo faytamiin oo waa la isticmaalaa Soomaalidu way u badan tahay waliba xagga wixii gaalka cayo loo galay ka shay marka qaab noocay ah marka qaamka loo diyaariyo waxa weeye labada lugood oo hasha laga jaraya neefka geelan awrhaado ama hal qaabka loo diyaariyo waxa weeye labada lugood waa la dareerinayaa marka jirka la dareeriyo sida uu waran yahay baa loo waraya tal cusbeeyo cusba lagu daro ka bacdina waa la jarayaa waa la yaryareynaya marka xigtana waa la shiilaya lama karin waa dad baqaar ma karisan yiraahdo aan aqoon waa la shiilay marka la shiilana subagaadarkiisna halka yaal baa lagu daray oo waliba la qurxiyay oo hayl iyo lagu daray muxuu ahay toon iyo dhirda lagu qurxiyay dumarku waxay qurxinayaan ragum bay qurxinayaan moogta islaan kaligeed hilib goosanayso cunaysa ma jirtaba waxaan ku dababaanay waa raga iyaga loo qurxinay haddii si fiican loo kaydiyo waxa ay tilmaamaysaa in muddo 9 cisho uu kayd ahaan u ooli karo iyadoo uusan ku iman wax isbedel ah 6 bilood iyo 4 bilood markii naag wanaagsan ay goyso wuu xumaada haddii isagoo kulul la xireeyo isagoo subagu ka yari hoosna subag ku jiro korna ka cilaana waa hogtaay waa qurmaa haddii isagoo kulul la xireeyana waa qurmaa haddii aan si wacan loo shiilin oo shiilinka sulugayana waa qurmaa saddexda nooc buu qurmaa haddii naag wacan samayso 5 bilood buu gaaraa 5 oo xeedha lagu xiro ama joog aan la nafarafarin oo la taaban weey ka kaydka noqonay kii la cunay deeshan maba joogayo deen hilib la soo hordhigay wuxuu soo kaxaysanaya dadkiisii deen rag iyo dhowr bilbu ku gaariya kii u bata jooga weyn waxyaabo la isku sooro birigi hore ma kamid ahaa hilibka maya sooridu waxay noqonaysaa markii xilkaas uu ka faa'iideeyaa gabadhi la soo aroosay ama yadan ba aroosay naagtii ninkeedii maqnaa oo yimi waa lagu soorayay laakiin sooriyada waxaynu u naqaanaa maanta reerkii loo soo ardaa dhigay ama reerkii loo soo hoyday deena fariyo qalaya haday martidu badan tahay awr qurbucu ba qalaya shinjir oo hilibkiisu cunus leeyahay ama wuxuu qalaya wan aduu ama wan ha noqdo ama orgi ha noqday neef buran wax ku sooreeyay bariiskiisa wixiisa haduu baadiye chocolate hilibkiisa aanahu ku sooreeyay cudurro maanta bulshada Soomaaliyeed ay ku wareereen dawooyinkooda shankaroon waxa ay tilmaamaysaa in hilibkan luqmada ama oodkaca lagu dabiibi jiray geela lagu baanaya wax kale lagu baanaya la saddex qof naagta dhasha dadkeena naagta dhasha wax buu siiyaa naagta dhasha waxa lagu baanaya oo tabar darisantay uurka lahayd hilibkaas wax baa loo qalaya geel la qalay ama labada waxood buu seen ka geel badan waxa loogu dhigayaa xuukada sixin lagu ma daray way ku baansanaysaa qofka jabarag iyo dumarba waa lagu baananay tiibiga qofka qaban waa lagu baanay saddexdaas oo baan u yahay geelu inkastoo ay quudkaasi dheefta wanaagsan ay Soomaalida u leeyihiin dhaqan ahaan haddana shacab badan ayaa isweydiin kara maxaa ku qasbaya inay cunaan raashin laga soo waariday dalal shisheeye oo ay kala kulmaan dhibaatooyin uu gaasku ka mid yahay kaasoo ay dad fara badani ka cabanayaan